in janalka hawada dib loogu soo celiyo wixii halka walaalkayo ugu jiray maal mood iyo nool wuxuu ahaaba inuu daahir xayraad ka qaado daahir arinta waa aqbalay sharmana waa soo dhaweeyay dayaxa hore ugu baxay oo raqiyo ruux wali aan lahayn heesihiisii meel ay ku dameeyeen aan lahayn youtube maanta dad dayax ku qorto wixii heesa 6 milyan 10 milyan daawanayeen waa faarq kaas baa laga samri laayahay sharma ma raaci karo xaasha wujud ma raaci karo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa salaamay anigoo ah shiina culay musharaxii shil ku reebay aan dhalay master taj nin walba sidoo u yaqaano maanta waxay ii ahayd maalin hawleed waxa aan ka odeeyay oo garteeda galay oo guul igu soo dhamaatay arintii u dhaxaysay oday daahir calasow iyo fanaan sharma boy sida la socotaan warka dhiilada leh ee baraha bulshada ilaa xalay haystay ee labada oday arintoodu ay gaartay meesha xille oo aan ku mataalay Star Wars labada oday arintooda xalayba waa galay oday daahirna waxa kala hadlay dalka Holland fanaan sharmana waxa ka hadlay magaalada Muqdisho waxa ka codsaday inay xaaladda igu simaan aan ka odayeeyo wixii murugsanna aan masaxadeeda doono labada odayba waa iga aqbaleen maantana sulux baan ku jiray waa u qalab qaatay waa u baaga mudeeyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waa ii fududeeyay waana igu asturayo igu maceebayn waxaan rabaa marka arinta waxaan ku soo dhameeyay iyo dadaalkii iga galay inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago intaanan u gudagelin waxaan ka codsanayaa muuqaalka hadaad aragtay inaad sii share gareyso oo la wadaagto asxaabtaada channelkayga YouTube hadaa ku cusubta inaad subscribe saarto bartayda YouTube Facebookna inaad follow soo tiraahdo like iyo commentigana inaad ii soo badiso deesaa la socotaan xaaladda labada oday waxay gaartay meel halis ah gaartay ninkii sharma aha channelkiisa waa loo dhacay wixii video ku jirayna hawada ma aragtay ku istaageen si kasta ha ahaato hadee labada oday aanu arintooda waa galay sharmana waa u sheegay waxaan iri wardabaan lagu guban dambaskiisa laga ma leexdo dayax dal noorshe waa la socotaa wixii ku dhacay dayaxme magac baa jooge heese ma jiraan dayax isagoo kaligiisu meelaha ordayaan heesii meeye hadda goor markay daahir isqabteen waa tuu ku leefay marka waxaan iri nin dhalinyaro tahay muran iyo dood iyo buuq iyo xoolahaaga lagu qabsado iyo janalkaaga loo dhaco iyo maxaa ku gelinaya hawsha aan ka odayeeyo waa iga aqbalay daahirna waxa iri wareede hadda siyaasiyiinta ina iska laalaalina balanteeno ahayd fanaaniintana ku dartay nacala shiida ku yaale daahirna si hoosaan ula hadlay labada odayba waxa ku iri gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa arinta taagan ee dadkii wadwado ee cidii cadow ahayd iyo cidii nacab ahaydba ay si kale uga faa'iideysanayso aan iska soo gabagabayno alxamdulilaahi rabbil caalamiin labada odayba waa ay gardhiibteen maantana hadaan mid walba gaar ula hadlay hawshii markaan isu soo jiiday meel fiican baan dhigay labadii odayba ay maqsuud ku yihiin waxaan go'aaminay sida ugu dhaqso badan in janalka walaalkeen fanaan sharma boy oo ku caanamaalay ee janalka runtii ummadda Soomaaliyeed marka YouTube noqoto ugu shidan heesa ugu culus ku jiraan qof kasta oo Soomaaliya maalintii 5 jeer dhigto ilaa xalay laakiin khali aha faaruq aha in janalka hawada dib loogu soo celiyo wixii halka walaalkayo ugu jiray maal mood iyo nool wuxuu ahaaba inuu daahir xayraad ka qaado daahir arinta waa aqbalay sharmana waa soo dhaweeyay 24 saac ee soo socda janaalkii sharma boy oo hadda la socotaan inuu saxada yahay ilaahay idinkii waxa rajaynaynaa sida oday daahir aqbalay in hawada dib loogu soo celiyo oo sida u camirna loo soo camiro wixii labadooda isku hayeen wax buuran ma ahayn laba oday oo biyaha hoostooda iska arkay ahaayeen maxaa ku yiraahdaayay in la isu tabar sheegto oo nin walba awoodiisa muujiyana aysan meesha ka maqnayn waa la socotaan sharma heestu soo qaaday fanka ana ka afarmaajo iyo daahir ayaami dhooytaan jawaadihii dhacay Muqdisho ana iishtantaay showga ma tay karto halka arintu waxba kama shisheyn waxa ku soo gabagabeynay inay labada odayba yihiin laba oday oo saameyntooda leh nin kastaana maqaaxi gaar ay u shidan tahay ninna arrimaha midiyaha saxaafadda falanqaynta maxaa ku raahday oo u shidan yihiin daahir yahay
nina fankiisa iyo gabadha dhexda xijaabka midda cadda xijaabka gacanteeda xaada hanto hawlaha isagana ciyaar xamaraanahay isaga shidan tahay marka wixii isu keenaaba ay gardarro tahay waxaan ku qanciyay oo ay ila qaateen in nin walba maqaaxidiisa shito xaafadina xaafada kale waxay ugu gudubtaa ay xasara tahay daahirna halkiisa ku ekaado sharmana halkiisa ku ekaado hadda wixii ka dambeeyana hadii wax ka taagmaan intaan la weerarin oo hubka qaaradaha isaga gudba la soo adeegsan in arinta oday Soomaaliyeed shiina culi lagu soo simo haday markaa wax ka qaban waayo ama ay ka tafdheeraatana markaas wixii ay ka maarmi waayaan ay isla maagaan laakiin mar walba ay arinta ugu soo simaan taana waa ila qaateen shacabkii Soomaaliyeed ee Sharmabo ku xirnaa ee ilaa xalay bilaa haysaha ahaa waa u tacsiyeynaya waxa leeyahay ilaa xalay ilaa maanta hadee wax khayr in ka baaqan dambi leenu qoriyay iyo hawlo shar iyo shaydaan ba maxaa ku raada heeso waa amal shaydaan ba idin ka baaqday wixii khayr kala lagu degdegaa wax khayr awalba ma ahayn haddana kulay dad belasitaatiina waa la idin soo deynaya wixii loo gaaro habeen dambe xilliga channelka dib ba ugu noqon doontaan heesiina waa ka dhageysan doontaan sidoo kale team habiqlayso oo daahir u gudoomiyaha u leeyahay waxaan leeyahay war xaaladda la dejiyo war hala tartiibiyo war duulaana kan cirka iyo dhulka umada Soomaaliyeed inuu sii kala fogeeyo awalba iyadoo aysan wax badan isugu jirin maaha isu soo dhaweyn miyo marka waxaan leeyahay hala joojiyo dagaalka badan hala joojiyo dayaxa hore ugu baxay oo raqiyo ruux wali aan lahayn heesihiisii meel ay ku dameeyeen aan lahayn YouTube maanta dad dayax ku qorto wixii heesa 6 milyan 12 milyan daawanayeen waa faarq kaas baa laga samri laayahay Sharma ma raaci karo xaasha wujud ma raaci karo marka waxa leeyahay team habiqlayso fanaaniintiina dhaqaaleysta fanaaniintiina dhowrta sidoo kale waxaan halka fariin uga dirayaa dadka lisinka ee odayga daahira iyo fanaanka Sharmabo isku sii lisaya ee fidmada ka shaqeynaya ee maqaaxiyaha ku shidanaya ee ay ugu badiso iyaga qaylo gardhaweyse in la iska qayliyo ay ugu badiso oo waxa maalintii qaylo soo yarto fiishku ku raadiya waxaan leeyahay arinta waa la soo gabagabeeyay shiina culay baa soo afjaray arintaas inta ka cuni karteen Allah idin calfo bariista ma ku helimeysaan meel kale maxaa ku raadayay ka doonta risaaqada ka doonta dad kale inay madaxa isla galaan ku duceysta kana kii hebel ahaa ay maxaa ku raadaay feeriyo faralab janaarka isku la kacaan meel kale ka bariisayaan leeyahay tan waa la soo gabagabeeyay waa la soo afjaray hadal kama loola dadkaana intaas aan leeyahay joojiyana fidmada iyo dadka isku direysaan joojiya tan ugu dambaysa oo araba dadka inaan la wadaago arintaasi janaarkii Sharmabo khasaaro ma ku yeelanaysaa Sharmo hadda koor waxa la yiri geelu ragaadka isagoo isku soo eriya hatiga marka qodaxda muddo isaga iska saar aqlu iska saar mar dhulka ku dhuftaa bif Sharma arintu ma fogeeyay isaga si fogeeyay wuxuu ku fogeeyay hadii odaygi daahira hal iyo laba heesood iska lulay wixii ba isaga meesha ka saaraa la sheegaya marka ma garanayo odaygu waxa u maleynaya bahalaha ku cusub marka janaalkiisi wax saameeyna oo ay arintaasi u geysanaysaa ma jirto habeen dambe wixii loo gaarana sidii uu camrinaan jiray buu u camrinaan doonaa ano oday Soomaaliyeed ba arinta balan qaaday ku seexda habeen dambe hadii janaalkiisu camrinaan waayo cimaamada waa tuuraya hawsha ara maaragtay soo gabagabeeyay ka odeeyay guul na kala imi marka janaalka wax saameyn u yeelan mayso ku reebi mayso dadkii ka wululayay oo islaha ama odayga arintaas saameyn ku yeelata waxaan leeyahay waxba ku yeelan mayso sidoo kale dadkii nacabkiisa ahaa islaha ninkaas waa idin jabay oo dib dambe heesiisa looga heli maayo YouTube-na waxaan leeyahay Sharmabo rug cadaayi soo rogaal cili ba ka dhacay habeen dambe marka la gaaro wiilkaasi fanka waashtay nin culus weeye qiimo leh isku filan libaaxa wixiisa qaadqaatay isagu marka nin oday weeye daahirna waxaan rajaynaynaa inuu wiilka xidigihiisa siiyo janaalkana uu sidaa ugu soo celiyo hawada baan rajaynaynaa marka arintaas guul bay ku soo dhamaatay ana ka odeeyay waana kalsooni buuxda dadka Soomaaliyeed ugu qabaan wixii aanu kaco waxa weey horaa la yiri wixii ragu kaco rabbi si aqbalo waa rumoobaan
shiino culay arrin u kacay oo aanu wanaag kala iman oo kusoo gabagabeynay ma jidho marka hawsha asaasaan kusoo gabagabeeyay alxamdulillaah rabbil caalamiin guul iyo gobonimo ka dhacday ku bishaaraysta labada odayna dagaalkii Star Wars ka qadhax qarxay oo dad badan ay jeclaayeen halkii dayaxdal nuurshe iyo daahir isla gaaray inay sharmo iyo daahir isla gaaraan arinta waa ka odayeeyay waxa la yiri balaayo daama la qabtay leedahay daba la qabto male marka arintaas meel dhaxaan ku qabtay khasaara dhacay ma yara runtii ma yara laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin عندما وحبن انت هدير مردي oday wixii loo soo celiyo intaasi waa sad waxay la tahay intii saa inuu maartay iimaan sanayo la galgalanayo marka hawsha waa soo gabagabeeyay hadal kama noola waxa weey ana u kacay ka odayeeyay sida lagu bishaaraysto muuqaalkan hala sii sheer gareeyo tawaaninkii shiina culeeyaha oday Soomaaliyeed leh salaam alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh